Simaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Jamhuuriyadda Somaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuur ayaa ka warbixiyay oo soo bandhigay qorshayaal kala duwan oo ay ugu tala galeen dadka sifada sharci darrada u jara dhirta iyo ganaaxyada iyo xoolaha lamida waxa aan mamnuucnay gabi ahaanba dhuxusha in laga shido dhirta dhul daaqsimeedka ku taala gabi ahaanba ta bedelkeedu waxa weeyaan way noognahay dhuxusha dee baahi baa loo shitaa cuntada lagu samaystaan taa bedelkeeda wasaaradda deegaanku iyadoo ogsoon baahida dhuxusha loo qabo waxay samaysay waxa wadanka la keenay gaasta dabiiciga ah ganacsatada keenay ganacsatada liisamay ku keenay si sharci ah laakiin dee waxay ku keeneen qiimo aad u sareeya waxaan ku dadaalnay wax kasta oo suuragal noqonaya in qiimahaas hoos u dhaco markii hore waxaan ogsoonahay containerka yare gas ama unit gas ahaato ama som gas ahaato $40 buu ku yimi marxalado kala duwan buu soo maray maanta 15 buu jooga waxyaabahaas oo dhan tansiilaadkaas waxa uu sameeyay dawladda sidii loo heli lahaa energy ama gas jaban ama dhuxul jaban oo lagaga maarmo inaynan geed ka shidin ciddii jarta iyaga oo qoyan ee lagu qabto xeer ciqaabeed baa jira xeer ciqaabeedkaas wuxuu dhigayaa qofka lagu soo qabto automatically in 3 sanadood ugu yaraan la xidho waxa kale oo dhigaya in la ganaaxo iyadoo ku xidhan tahay hadba waxa uu soo jaray way socotaa maalin walbana waa la qabtaa maalin kastana waxa loo gudbiyaa hay'adaha sharciga ee ku shaqada leh sidoo kalena waxa uu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan deegaanka isla markaasina deegaanku yahay mid ka wada dhaxeeya bulshada Jamhuuriyadda Somaliland taasi oo uu sheegay inay habboon tahay in la wada ilaaliyo sidoo kalena waxa uu meesha ka saaray inaanay habboonayn in hab ganacsi loo isticmaalo dhirta bulshada reer Somaliland waxaan ku wacyigelinayaa anoo ka faa'iideysanayo waraysigan in ay jiraan waxyaabo fara badan oo xalaala oo business laga sameeyo oo laga faa'iido deegaankana faa'iido u leh dadkana faa'iido u leh dalkana faa'iido u leh waa inay ka waantoobaan waxyaabaha kontrabanka waxay kontrabaan ku noqdeen noloshii wadankeena ayay faa'iido u yeelan waayeen horumarkii wadanka ayay ka soo horjeesteen wax yeeleen dhibeen marka automatically waxaas waxay noqonayaan diiniyan wax xaraana mar hadii ay deegaankii iyo bulshadii ku noolaan labadaba ay dhibeen marka waxaan leeyahay waxyaabo fara badan oo xalaal ah oo aydun business ka samayn kartaan ganacsi ka samayn kartaan lacag ka helaysaan kana waantoobaan bacaha dhuxusha duur joogta waxyaabo noocaas ay tahriibinayaan ciqaabtooda wax saamixi ka soo bixi maayaan waxa kale oo soo bandhigay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Jamhuuriyadda Somaliland farqiga u dhaxeeya xaalufinta deegaanka iyo roob yaraanta waxana hadaladiisii kamid ahaa roob la'aan waa biyo la'aan waa nolol la'aan noloshu waxa weeye wax walba tusaale ahaan abaartii ugu dambeysay waxay dhacday 2016 meelihii ay abaartu aadka u saameysay waxa uu gooyay roobkii guga ayaa seerseeray oo si hogla yarideen kii deyrtana gabi ahaanba waa u gooyay shilaalkii halka markii la gaaray waxa ka soo baxay inaan roobdiin markii roob aanu diina aanay geedo soo bixin hadii aanay geedo soo bixin xooli waxay cuneenay waayeen xooli ay macalo ugu baqtiyeen labada marka leega biyaha iyo baadka ama biyaha iyo geedaha وخضر محمد محمود خضر قولي ورباهنت قرنك سوماليلاند مقالة هرقيساء